Madasha Hili Health ayaa gudaha caasimadda ku qabatay munaasabad lagu abaalmarinayo isbitaaladii bixiyay adeegyadii ugu fiicnaa ee sanadii 2025. Munaasabadan ayaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo xilal sare haya iyo sidoo kale dhaqaatiir, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale. Ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha Hili Health Forum Cabdifataax Nuur isagoona ka hadlay ahmiyadda ay leedahay madasha iyo sidoo kale in la bixiyo adeegyo caafimaad oo tayo leh isagoo ugu mahadceliyay isbitaalada habdhaqankii wanaagsanaa iyo bixinta adeegyada tayada leh ee sanadii la soo dhaafay 2025. tiimka ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dhinaca caafimaadka qaabilsan oo caawa runtii naga aqbalay casuumaadda inay goobjoog u ahaadaan ururka isbitaalada gaarka loo leeyahay madaxdooda madaxda NHBC ururka milkiilayaasha caafimaadka iyo saxaafadda yaana ka tagin wasiirkeena caafimaadka Hirshabelle iyo waxaan ugu soo biiri doonaa wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenka ugu soo biiri doona gordhow farxad ay noo tahay inaan runtii caawa nagala soo qayb gashaan munaasabadda ujeedka uu sheegay Cabdullaahi Shiiqaalo oo ahaa munaasabadan inaan ku shaacino caawa oo aan ku dhawaaqno liiska isbitaalada aan u garanay annaga Hili haddaan nahay isbitaalada ugu adeega fiicnaa sanadkii tagay 2025 oo runtii aan ku xusayno dadaalkaas inuu yahay dadaal muuqdo. qiimeynta waxaan ku sameynay hay'adda Hili sanad walba waxay qabataa forum weyn oo caafimaad. forumkaas waxaa looga hadlaa presentation isbitaaladu ay ku jeediyaan waxaana dhanka kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirtii ka soo qayb gashay ee munaasabaddan iyagoona ay sheegeen in loo baahan yahay in kor loo qaado tayada caafimaadka iyo adeegyada bulshada. ugu weyn maxay ahayd China waxay diideen qof inay social media oo ka hadlo wuxuu aqoon ama takhasus uusan u lahayn. marka annaga culays badan naga taagan sax way regulationadii badan waa dhimayeen laakiin waxaan u baahannahay inaan soo banbaxno bahdeena caafimaadka dhaqaatiirta inay soo baxaan ay sheegaan bulshada ay u sheegaan wax badan laana maalin dhawood waxaan arkay gabar ka hadlayso talaalka ee dhaysa talaalka iyo al-istalaal magar iyadoona ahayn qof dhakhtar ah marka waxyaabo badan marka waxaa jirta annaga waa tusaalooyin dhow waa wada ogtihiin annaga marka waxaan u baahannahay waxaan bogaadinaynaa marka in TV-da noocan camal hal kaliya naguma filnayta waxaa nagu filan TV badan gobol walbaba meel walbaba dhaqaatiirta inay bulshada la hadlaan sababtoo ah waxaa aad iyo aad u yaraanaysa rabnaa inaan soo korino sumcaddii dhakhtarka Soomaaliyeed oo ku dhaxlay bulshada runtii in aan noola arkin dad ka shaqeysa bulshada lacag kaliya ka qaad in dadka bulshada wax ku celin waa ogtiin isbitaalada ugu badan private-ka inta ugu badan waxay ku sameeyaan campaigns ama free ku sameeyaan waa ogtiin primary health care-ka inta badan isbitaaladu waa free oo maanta hooyada uur kale la socoshadeeda iyo waxyaabo badan computerkeeda wax dhan kulli isbitaalada maalin waxay qabtaan shaqooyin free ah laakiin bulshadeena wali intaas lama oga ma gaarsiisna marka waxaan u baahannahay in badan in laga shaqeeyo raalli ahad oo idinku dheeraaday aad iyo aad u mahadsantiin sallallahu alayhi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd awwalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh caawa xaqiiqatan aad ugu faraxsanaynaa munaasabadan quruxda badan aan ka soo qayb galo forumkan xaqiiqatan in lisku xilqaamo oo team inay baxaan isbitaalada tagaan ay warbixin ka keenaan isbitaalada ugu fiican ee magaalada ama dalka Soomaaliya ka jiro xaqiiqatan wax sahlan ma ahan marka shaqo aad u adag waaye waana xaqiiqatan waxaan ku hambalyeynaya isbitaalada ku guuleystay adeeg ugu fiican ee u hayaan mujtamaca sax waaye gaab uu jira mujtamaca iyo isbitaalada ka dhex jiro oo ah in marqarkood dadkeena ku kalsoon yihiin inuu baxo ama dibadda uu aado oo caafimaad uu doonto asoo heli karo adeeg caafimaad oo uu ka heli karo wadankiisa uu ka heli karo. ugu dambeyntii waxa uu soo xiray munaasabaddan oo ay soo qaban qaabisay madasha Hili Health Forum senator iyo sidoo kale dhakhtar Dufle kaas oo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay in la wada shaqeeyo iyo sidoo kale ka warqabida ee bukaanada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت كذب وزيرك
wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabelle agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda mas-uuliyiinta caafimaadka ee xafiiska prime ministerka guddoomiyaha hay-adda Hiliye Forum Health Forum dhammaan guddiga mihnadlayaasha caafimaadka dhakhaatiirta kala duwan qaybahooda kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo dhammaan qof kaste magaca iyo mansabka iyo maqaamka uu ku joogo ayaan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. war badan kama furno dabcan oo hadda raggii hadlay hadda runtii nuxurkii ujeedka taabtay. ujeedada waxaan rabaa hambali iyo bogaadin inaan u soo jeediyo Hiliye Forum Health Forum oo guddoomiye ka yahay Cabdifataax iyo tiimkiisa oo ka mid ah Cabdijaliil iyo ragga kale ee runtii hay-addaas dardarta geliyo ayagoo runtii isku howla sanad kasta oo sanadkii 6aad sidii ugu soo bandhigi lahaayeen yacni dhiirigelinta bahda caafimaadka iyo adeega caafimaadka cisbitaalada kala duwan hadday noqon lahaayeen public hospitals iyo hadday noqon lahaayeenba private hospitals. marka waxaan rabaa hambalyadas weliba isxilqaan hay-addan ayaga iskooda hal abuurka oo runtii ay barnaamijkan u soo dejiyeen ayaan rabaa inaan marka sanadkasna ugu hambaliyaa waana ka soo qayb galaaye runtii inay yihiin hal abuur oo runtii wax ku ool ah oo weliba stimulate garaynaya ama kicinaya runtii yacni bahda caafimaadka iyo adeega cisbitaaladooda. waxaan rabaa oo kale hambalyo inaan u diro halkaan aan ka soo jeediyo barnaamijka cusub ee telefishanka caafimaadka Hiliye Forum halkaan ay ka soo jeediyeen iyo agaasimahooda runtii oo arrin wax ku ool ah. maxaa yeelay telefishinada waa jiraan barnaamij caafimaadna bixitaankooda waa jiraan laakiin waa mid mukhasas u ah wax badan buu ku soo kordhinayaa wacyigelinta bulshada caafimaadka oo baahi weyn u qabta runtii wacyigelinta caafimaadka. tan kale runtii arrintaada uu ka dhawaajiyey Dr. Maxamed Cabdullaahi oo mihnadlayaasha caafimaad ka tirsan iyo private hospitalska waa dhab. waxaan rabaa inaan xuso in yacni dad aan ehel u ahayn in ay runtii wacyigelin waayahan dambena aada u badatay